dhalinyaro maanta anigana sharaf iyo karaamo weyn ii tahay inaan meeshan idinkugu imaado fursad isku maynaan helin intii xamar la joogo muddadeedu aad u gaabneed laakiin halka aanan fursad isu helnay inaan idin soo daba kacoon halkaan imaado runtii dagaal haddii la galo waa la kala bartaa dadka madaxdaa la kala bartaa saraakiishaa la kala bartaa askartaa la kala bartaa dhammaan dadka waa la bartaa qof walbana doorka uu qaato maalintaas ay maalinta adag ay ahayd maalinta fiican oo nabaddu ay jirto nin kasta ahi waa fiican yahay waa xaragoo yaqaana waa faani yaqaana waa muxuu ka araaday meel kasta waa ka soo bixi karaa laakiin maalinta ay xaaja adkaato oo ay maxaanku yidhaahday howluhu adkaadaan maalintaas ninka ka soo baxa hawsha ee si fiican uga soo baxa waa ninkaas ogoobo ogow dhimasho waa maalintii alla qoray alla dhintaa dhinta ee ma dhinto muxuu ahay xabada meel xabadalahu tegey iyo meelaan xabada lahayn uu joogay muxuu ahay ma disho dadka ajasha maalintii ilaahay kuu qoray adigoo xabiibiya maalintaasaa dhimanaysaa dhaafi maysid ama sariirtaada ku dul dhimo ama maxaanku idhaahday madfac ha kugu dhaco ama xabad caadi ha kugu dhacdo ama malaariya ha ku disho maalintaas unbaad dhimanaysaa ka hor dhima maysid laakiin intaad nooshahay inaad cizi iyo karaamo ku nooshahay oo aad maxaanku idhaha karaamo darro aanay ka dhicin dhallinyaro ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed asoo keligiis ah oo kaashanaya un dadka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ayaan dagaal soo bilownay muddo sanad ka hor ah dagaalkaas uu soo bilaaba maalintaas waa la qusquslahay dad badan waxay lahaayeen hadday iska soo noqon doonaan ma iga meel tegayo oo dadkanaga waxaa loo sheegaya war waa idinka soo tegayaan hadday idinka soo tegayaane muxuu ahay waxba yaanay muxuu ahay idin waxaynin annagoo intaan ka tiro yar idinku aadan qayb ka ahayn dhallinyaro kaloo idinla walaalihiin oo meesha idinkaga soo horraysay ay joogaan tiradoodu aad u yar tahay qalabka ay haystaan uu aad u yar yahay ayaa amisoonoo yaabanoo lahaye meeshaana idiin joogaynaaye socda ayay halkaa ka soo dhaqaaqeen waa yimaadeen berigaas amison annagu kumaanaan qanci karin soomaaliyan nahay waa dagaalan u soconnaaya nala gala oo waxay noo arkaayeen dad aan dagaalku dhab ka ahayn oo aan meelna u soconin laakiin hadda maanta way fahmeen inaan dagaalku dhab naga yahay annaan wax qabsan karno annagu wakhti ma qabno dalku waa dalkeennii cid aan u fadhino meel oo aan sugayno oo dawladdiiyo xoog laho wax walba u dhammaystiran yihiinoo kartoon ku jirto ayadoo waddabaaka ku jirto noo keenaysaa ma jirin gacnaheennaan shalay dawladda ku duminnay aabbayaashiin aniga ilaa cimrigiisii inaan waagaas joogo welina noolahay gacmahanaga qof nagu kaalmaysay dawlad duminta ma jirin xaqiiqada dhabtaa waxay tahay dawlad dhisiddana qof nagu kaalmay karto waa la helaa laakiin qof noo dhisi karto dawladda heli maayo shalay dawladda annagaa duminay maantana annagaa dhisayno dawlad dalkan kama hana qaadi karto kamana dhismi karto inta nimankaas khawaarijta ay joogaan dalka afarta dalka dadka diinta iyo dawladda afartaba nimankaasaa aad dabar inta ku xidhay yaa meel la fadhiistay diintii waad aragteen wax kale iska daaya dugsi qur'aanadii xataa waa xidheen meelaha ay muddo dheer joogeen dugsi qur'aankii xataa waa xidheen wax kale iyo barasho kale iyo aqoon kale iyo iska dhaaf nolosha kaloo ay dadkeenna ku noolaayeen muddadii dheereedna waad arkayseen waanaad ogeydeen waad soo aragteen meelaha degaanada waa tagteen horumarka ka jiro wax la'aanta maxaanku idhahdaa 1000 sano ka hor sidii dadkeennu ay baadiyaha ugu noolaa jireen maantana ugu nool yihiin qarniga 12aad waxaana u sababa waa nimankaas cadowga ah ee maxaanku idhaha ummadda intaas haystay dhallinyaro waxaan rabnaa dalkeenna iyo dadkeenna inaan meeshaas ka keenno idinku duruufihii aad ku soo korteen ood ku soo barbaarteen oo aad ku noolaateen ood wax ku barateen carruurta aad dhalaysaan ka duwan duruuftaas duruuf ka duwan inay ku noolaato oo ay ku barbaarto oo ay wax ku barataan rabnaa cabsidu waxba noo tari mayso cabsidu waxyaabaha ugu horreeya fashilka keenay tahay qofku hadduu cabsado ma aha xabadda keliya lagama cabsadee dadaa go'aan inay gaaraan cabsanayo dadaa meel inay tagaan ka cabsanayo dadaa maxaanku idhahdaa inay runta sheegaan ka cabsanayo dadaa qof walba cabsi
intaba aad kelmadda aad aaminsan tahay inay sax tahay aad ku taagan tahay cabsidu waxba ma kuuma celinayso waa ku fashilinay waa ku curyaaminay waxtarkaagay hoos u dhigay huuhaa iyo been iyo maxaanku yidhahdaa waxaan macno lahayn inta ciidamada lagu soo dhex daadiyo waan ogahay inay kuwa xunxun oo Soomaali ah oo ka arka inay fashilku inuu ayagu guul yahay waa nacasi ileen fashilku qof Soomaali oo adduunyada korkeeda saaran ama New York ha joogo ama maxaanku yidhahdaa maxaas ha jooge ma jirto qof Soomaali oo maanta shabaab in lagu fashilma ama shabaab guulaysta maslaxad ku qabto mara nacasnimo waa halkeeda garasho waa halkiisa aan kala garanba wixii saxda ah wixii qaladka ah maangaab waa halkiisa laakiin maanta shabaab guul shabaab maanta qof ay maslaxad u tahay oo ka macaasha yahay ma jiro laakiin xaggee loo noqdaa aad noqotide aan wada noqonna dhammaanteena xamar aan isugu tagne ma ku ammaan helaynaa ma ku noolaanaynaa nolosha kale iyo heybadda iyo sharafta haddii laga soo taga xataa ammaan aan ku kalsoonnahay oo aan ku ledi karno la seexan karno ma ku haysannaa xamar haddaan isugu tagno dhammaanteen jawaabtu waa maya kuma haysano horena ugumaanaan haysanin haddana kuma haysano kumana helin hadda maanta xamar dadku waa ammaantamaan oo waa fiican tahay xamar oo sidii hore waa dhaantahay waxay ku dhaanta waa adinka xamar waxay sidii hore ku dhaanta waa adinka laana nimanka xamar qarxida waaweyn oo qarxii soobo kala keeni jiray maanta ma keeni karaan koow waay horta waa mashquulsan yihiin oo adinkaaba mashquuliyo baqay ku jiraan waa niman baqasho ku jiro oo cararaya firaaqo uma helaan waqtina uma haystaan labo kuwa adinka oo kale ahaa u taagan albaabada xamar laga soo galay bannaankeedoo dhan oo hor taaganoo maxaa fashilinaya oo meesha ku celinaya oo aanay soo mari karin marka dhalinyaro waxaan rabaa maanta waa maalin naftaada adiga iyo nafta ninka xamar jooga daarta dheer ee maxaan ku rahaa apartmentiga inta kireystay ku dhex jira ee ku nool isku mid waay meeqaa naga dhimato oo aan dagaal ku dhiman maalin walba inta dagaalka nooga dhimato waxaa ka badan inta caadi nooga dhimataa ka badan haddii lasoo tiro koobo caadi malaariyaa dishay kansaraa ku dhacay maxaan ku ihahdaa beerkoo beelay maxaan ku ihahdaa staroga ku dhacay oo lug iyo gacanaa dhacday kabacdina waa dhintay saaron shilow galay waxaa la leeyahay oo dhan ayaa boqolkiiba